doorashada lamaanaha waa noloshaada go'aanada ku soo maray go'aanka ugu weyn oo qaadan kartid ama tilaabada ugu weyn aad qaadi kartid waa tilaabadaas sababtoo ah noloshaada inta ka dambaysa inaad yani shalayta iyo rafaad ku dhameysatid oo aad xasiloonida dhan ay ka tagto iyo inaad markaas xasilooni heshid saacadaas waa sidoo Ilaahay ku waafajiyo marka hadii aan ka hadalno mawduucan maxaan uga hadlaynaa dowladan maxaan ka rabnaa dowladan saddex shay ayaan ka rabnaa marka koowaad mawduucan ka hadalkiisa waa inaan Ilaahay ku raali galinaa oo sida salaada lagaaga rabo oo shanta salaadood maalinta ay waajib kuugu tahay ayuu waxay waajib kuugu tahay inaad baratid diintaada marka aad qoys samaysanaysid iyo marka aad qoyskaaga la dhaqmaysid diinta waxay u qaybsantaa mucaamalaad iyo cibaadaad iyo jinaa'iyaad marka mucaamalaadka waa fiqigana markii loo qaybiyo 5 meelood meel kamid ah mucaamalaadka diinta ka hadasha oo mucaamalaadkaas oo ah dalaaqi usradii rajcadii yani nikaaxi ilaagi kulligood marka iyo arinta saddexaad oo lagu qasbays inaan ka hadalnana islaamka oo ugu yeerayo in macnaha mawduucan islaamka dacwadiisa yeeritaankiisa Ilaahay muxuu leeyahay wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum dadka saalixiinta adoomadiina kamida u guuriya mid arinta saddexaad oo muxuu ahay dowladan inaan ka hadalno lagu kalifayso waxa kamid ah waaqaca jira dhibaatooyinka qoysaska haysta iyo mashaakisha tarbiyada xumaatay akhlaaqda fasaadka kulli waxa way qoysaskaas yani qofka markaad wadada ku aragtid waxaad ka qiyaasan kartaa akhlaaqdiisa iyo wanaagiisa meeshu ka soo baxay qof walba wuxuu turjumaan ka yahay oo meeshan fadhiyo gurigu ka imaaday marka arintaas waa arin muhiim jiddan ah hadii dib loo macnaha hadii la dayacana waxay noqonaysaa inaan mustaqbalkeen ummadda dhan u dayacmo waa tarbiyada waa guriga akhlaaqda ka jirta waa wanaaga waxaan hadda adduunka dhan fasaadka meel walba fasaadka qabsaday oo muxuu haay gabdhahan qaawnida iyo mashaakilka kulligood waxa waay guryahay ka soo tooseen bay waxay ka yihiin risaalo ama fariin Quraanka wuxuu kaga warramay arintaas sidoo qiimaha ugu sameeyay 146 aayadood ayaa waxay ka warramaysaa usrada qoyska dalaaqa rajcada يعني سورة دم حتى حاله بحي سورة النساء أيضا يعني كترت أحكام تربدا أو لغة هذا أحكام تاس أحاديث رسولك أو قصة أرارتي موضوع أسرة حساب ماله هذا لهنا ما أنت حسابين إلا ما حسابين كرم سيدا سوى الوحى نويا لا سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم أو كل جدي وذا قرن أو يعني زوجاتك سنوي صلى الله عليه وسلم سؤال دق بشري يعني وحيا وحى صدق وحكوا قرنت هاي دينته marka diinta waxay siisay ahmiyad aad u weyn u balaaran bay siisay muxuu haayay mawduucan marka mawduucan quraanka waxa kamid ah wuxuu ka hadlay usar saciida dad wanaagsan yani qoysas wanaagsan waxa kamid ah banaat shuayb nabi ilaahi shuayb gabdhihiisa nabi muusa xaaskiisa ayaa kamid ah waxa la dhahaa siirada atarka mufassiriinta qaar waxay ku fasiraan nabi شعيب قبل يسوي حالير إلهي وحي كبر يجلس إنه زوج صالح سيو إلهي محو كاني فتى زمانه يعني نبي موسى إلهي وكاني مركا إنه قفك متعلق كو هذا إلهي وكبر يو وكبق أرنتاس متردد يعني أرنتاس وكبق إن بدن إنه معناها نلاش يسدم وكل ما يمحو هاي إسكا ما لا يعني وإسكا وحي كهري مع ذا إسكا دارته وأرن فرق وين ودحيو صادرت مركا يعني dadka عاقلينتا موضوعaas in badan bay ka joogsadaan oo ka baqaan fiqiga islaamku wuxuu ka sheekeenayaa wuxuu uga sheekeenayaa mucaamalaadka zawaajka iyo ku saabsan khumus 5 meel markii loo dhigo meel kamid ah fiqiga waxay ka hadlaysaa usrada fiqul usra kitaabada way ka buuxaan kulli yani masaa'isha culimada ay waaweyn ay xaliyeen xisaab ma lahan waxa kale oo ugu keenayo waaqaceena maanta reeraha wax is haysta maaha dhibaatooyinka ka jirto dalaaqa nisbadiisa kor u kacday waxa soo dhan muxuu haayeen dhibaatooyin tir badan oo ka cabanayso usrada iyo tawabar khalada oo ku socda qoysaska muslimiinta tawabarkaas khaladka sida muxuu haayee
hadda masalan suugaanta Soomaaliyeed oo dhan musalsalaadka riwaayadaha heesaha kulli waxay wadaan tababar khalada usrada muslimka sidii lagu burburin lahaa qofna ma dhahayso usrada muslimka burburinaya laakiin waxa waaye dariiqyo loo maraa jirto qaabab loo maro dadku waxay ku daydaan maanta Mareykanka iyo Europa iyo gaalada ay ku daydaan dhanka usarta marka iyadana dhanka usarta hadaan ka hadalno يعني dhibaatooyinka usarkooda haysata waxa soo dagaal ku socda muslimiinta waxa soo fasaad ku socdo waxa soo fasaad iyo dhibaatooyin ay jirto hadana dad reer ayaa jira reer quman oo degan oo dhaqma oo dad wanaagsan haysta jooga marka hadii laga waramo qarbiga reeraha qoysaska boqolkiiba 85 dadka waxa way caazibin maba guursadaan ba aslan guurka waa fikrad khalad ka aaminsan yihiin marka hadduu qofka guursan insaanka dabiici inuu xaaraanta dhankeeda ku guto muxuu hay xaajaadkiisa nisbada dalaaqa maxaa soo haray boqolkiiba 85 hadda dhahanay ma guursanin 15 boqolkiiba soo hartay 15 boqolkiiba konton waa hadana waa dalaaq waa nisbada dalaaqa markii la fiiriyo saddexdii oo cunug oo Mareykanka waxa lagu leeyahay mid baa wuxuu ku jira xabsi saddexdii cunugba mid baa xabsi wuxuu ku jira markii muxuu haye jaraa'im iyo dhibaatooyin uu galay wuxuuna ka soo jeedaa reer kala burbursan oo kala fakan hooyooyinka magaalooyin dhan ayaa xiran oo xirmaday sidii macnaha dad badala ma jiro dadkii horena waa weynaadeen istaaladii waa xirmeen iskuuladii ciyaalka yararka lagu talgalay way xirmeen dadku marka maxay tarbiyeysanayaan booski ilmaha waxay tarbiyeystaan eeyada iyo yaanyuuraha meeshii baambarka caruurta looga gadi jiray hadii aad gashid muxuu haye moolashooda baambarka eeyada yaanyuuraha ka buuxa iskuuladii waa ka xirmeen istaaladii waa ka xirmeen annagana muxuu haye ma sha Allah marka waxaa lagu leeyahay 10 malaayiin Europa 10 malaayiin oo hooyo baa kaligeed ilmaheeda beelato ima inuu qeyr sharci ku dhashay cunugan oo sharci ahaan inuu muxuu haye aabahoodba uu ka tagay oo daaq uu kala tageen 70 boqolkiiba dadka waaweyn waxaa lagu leeyahay waa dad la'aan ilaa waxba la jooga ma lahan ilmo baysan inuu haysan baa laga yaabaa ama ilmo dhalin marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo ayaga haysta hadana anagana cagsigeedana haysta Afrika cagsiga dhibaatooyinka haysta Europa waa anagana haysta anagana zawaajkiiba wuxuu ka batay tiradii oo muxuu haye waxa laga yaabaa maanta reer 10 qof ahaa oo qoys ahaa inuu aabihii ka raadsado gabar kale oo reer kale guursado marka halka waxa ku dayacmaya 10 qof tarbiyadoodii hooyadii waxa laga yaabaa inay ku mashquulso axwaasheedii iyo mashaakilkeedii iyo dhibaatooyinkeedii iyo culaysyada iyada haysta marka halka waxa ka soo baxayo reer kala burbursan ilaa ilmihii waxay rabaan maaliyan maal ahaan akhlaaq ahaan tarbiyad ahaan wax garab istaagay rabaan dhinac walba marka anagana cagsiga waxaan haystaa Europa yaani meeshii magaalooyinkii waxa weeye nisbada waxa lagu leeyahay Soomaaliya wadanka Soomaaliya nisbada ugu sareysa uu ka haystaa muxuu ahaay shaqo la'aanta markaas Soomaaliyeed gabdhihii maxay sameynayaan kulli baabul hijra galaan maxay raadinayaan qootuliyoon bay wada raadinayaan wadankooda hadii ama shaqo ku haystaan ama xirfad ama wax wanaaga dhibaatooyin tiro badan ayaa anaga dhanka usrada naga haysato oo waxyaabo mu'lim ah oo aan la sifeyn karin halka marka waxa weeye muxuu haye wax nagu qasbaya inaan dowradan ka hadalno waxaan ka marka mowduuca labaad oo inaan ka hadalno rabno waa ta'hiil nafsi lizawaaj qofkan diyaar mu yahay guurka ma wuxuu u qabaa macnaha wax iska falaada ma wuxuu qof u diyaarsan oo dowladkeeda qaatay dadka gabdhaha waxay maleysanaysaa markay guursanin ka hor waxyaabaha ku jira tawaqacaadkeeda waxa kamid ah cambuur qurux badan inay xiran doonto oo ay fustaanki yaani galbiska ahaa yaani nolosheeda dhan inay waxa u sawiran inay noqon doonto boqorad sida riwaayadaha ku jiraan iyo musalsalaadka waxay ka aaminsan tahay nolosho dhanba wax macnaha wax walba inay hoosteeda imaan doonaan sidaas oo kale wiilasha waxay ka aaminsan yihiin inuu muxuu haye islaantiisa adeeci doonto oo muxuu haye labayk بين يديك يعني waxyaabo waxa ku jiro qofka takhayulaad
takhayulaadkaas marka boqolkiiba 90 wax jira ma aha guurka macnaha sida adiga ka maleynaysid ma ahan ee waa mas'uuliyad waa tadxiya waa hurid waa mas'uuliyad culays ku fuulay way waa hurid waa muxuu haye isfahan waxaad ugu daleedahay inaad heer dhistid waa inaad naftaada u diyaarisid arintaas marka midda koowaad waxa weeye aan naftaada u diyaarinaysid zawaaj mas'uuliya guurku waa mas'uuliyad waa culays marka gabar tahay hadaa meel ka shaqaysid oo aad qaadatid lacag jaabkaaga gashanaysaa waxa doontaa ku samaysanaysaa laakiin muxuu haye ama wiil marka tahay mesela lacagta qaadato dhan adiga iska isticmaalaya wax yar un ba ahalkaaga ka siinaysaa culays kuma saarna laakiin marka guur iyo reer aad dhisatid waxa weeye culays tiro badan ayaa ku fuulaya waxay noqonaysaa muxuu haye inaad ka fikirtid reerkaaga mustaqbalkaaga caruurtaada maxaa siinaysaa xagee dejinaysaa maxaa ku biilaysaa yacni kulli waxa weeye culaysyo tiro badan oo adiga ku fuushan marka tasawurkaaga tawaqucaada inuu macnaha ahayn guurka oo uu yahay wax ka duwan haddii kale sidaa sawiranaysid haddii aad ku wadid waxay noqonaysaa inaad fashilantid adoo waxba bilaabin fashal uu kugu imaado zawaajku waa mas'uuliyad qofka inuu ninka uu awoodo nafaqada gabadhu inay awoodi karto muxuu haye odageed inay adeecdo oo gurigeeda ay ka adkaan karto inay macnaha qof u bisil tahay arintaas inay muxuu haye mas'uuliyaadku u kala qaybsan yihiin mas'uuliyadda ninka uu qofka yaqaan kana mas'uuliyadiisa yaqaan marka horeba inaad baartid oo aad ku talagashid maxaa ani mas'uuliyada maxaa waajib laga rabaa maxaa la kulmi doonaa maxaa noqon doonaa su'aalahaas oo dhan inaad adiga isaga jawaabtid marka koowaad ka bacdina muxuu haye ogaatid mas'uuliyadda ku saaran oo aad xambaartid tadxiya guurku waa hurid aabuhu 12 maalintii 24 hours wuxuu shaqeynayaa shaqo wuxuu awlaadiisa sidii noloshooda u ta'miinin lahaa bumaantoona ka shaqeynayaa yacni wuxuu dhihi karaa muxuu haye ani waxaa soo dhacaysa maxay saaray waa tadxiyo waa hurid waxa weeye hooyadu waxaa laga yaabaa inay shahaadooyin tiro badan oo haysato inay shaqo banaanka ka qaban karto inay meel walba ka shaqaysan karto laakiin haddana ciyaalkeeda inay ka doorbido oo dhahdo ciyaalkayga iga dayaxmin ciyaalkayga haysanaya inay guriga u fadhiisato inay tadxiyo samayn karto marka tadxiyadaas inaad diyaar u tahay nabi sallallahu alayhi wasallam umuhani sallallahu alayhi wasallam saxaabiyadaas umuhani waxay dhashay ciyaalkii ay dhashay odayoodii ayaa dhintay nabiga marka qaraaba ka dhaxaysay wuxuu damcay inuu garab istaago oo guursado gabadhaas umuhani marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxay ku tiri yaa rasuulallah aniga waxaan ahaa islaam muyatama laga dhintay waxaan rabaa bay tiri ciyaalkayga haddii aan maxay tiri aan ciyaalkayga u soo jeestana waxaan xaqaaga ayaan dayacayaa haddii aan adiga muxuu haye caruurtayda kaliya hadaa u jeestana xaqaagaan dayacayaa haddaa adiga kuu soo jeestana xaqa caruurtaydaan dayacayaa markaas waxay gabadha ka dooratay rasuulka sallallahu alayhi wasallam acdam insaan insaanka ugu weyn adduunka inay guursato oo ummahatul mu'miniin ku biirto waxay kaga dooratay ilmaheeda inay u tadxiyeyso marka guurka haddaad tadxiyeyn karin maalmaha hore waxaa lasoo dhigaya social mediaha cunug yar ah hooyadiis ka tagtay oo iska ooyay markaas waxaa leeyahay meelaha cudurro nafsi ah ku dhacay meelaha hala geeyo muxuu haye ilmaha lagu ricaayo dhibaato qofka hadduusan tadxiyeyn karin oo ilmihiisa u tadxiyeyn karin khilaaf yar oo adiga ka dhex dhacay waxaa laga yaabaa ciyaalka inay hooyada uga tagto ama 10 hadday ahaayeen meesha isaga dhaqaajiso ani maxaan ku samayn karaa haddaad ilmaha u tadxiyeyn karin inaad dhashid maha marka hore inay mas'uuliyadda guurka qaadid ma ahan inaad gashid barnaamijkaas ma ahan waa inaad naftaada u tadxiyeyn kartaa alxamdulillah yacni hooyooyinka soomaaliyeed boqolkiiba 90 tadxiyada isku fiican yihiin khaasatan yacni community ahaan markii laga hadlo dadkeena aad bay ugu fiican yihiin tadxiyadaas waxaa laga yaabaa hooyo odageeda dhintay inaysan dib u guursanin waxaa laga yaabaa hooyo qof biilaya uusan jirinba aabayaasha soomaaliyeed maasha allah waxaa waaye qaybna waa agoon iyo agoon ekeedhaan soomaalida yacni mas-uuliyad tiro badan ba ilaa iyo laga soo bilaabo burburkii soomaaliya ilaa hadartaan hayaa marka mas-uuliyaddaas qofka hadduusan dareemi karin inuu guursado ma ahan tadxiyada hurid waa inuu u samayn karaa naftiisa ciyaalkiisa waa inuu u samayn karaa hurid marka waxaa laga rabaa qofka inuu muxuu haye tadxiyo samayn karo aabaha iyo hooyadaba ciyaalkaaga see mas-uuliyadda ku bari kartaa marka
مسؤوليته waxaa ku bari kartaa ciyaalkaaga inaad jacayl tiro badan u muujisid qof kasta oo wax jacayl mas'uuliyadiisa way ka sareysaa qofka kale oo cunuga markuu ihtimaamka iyo jacaylka yaani la qabsado hadhowti waxa way mas'uuliyad tiro badan oo ka soo bixi karo ayaa meesha ka soo baxaysa saasoo kale waa inaad muxuu haye ciyaalkaaga ku beertaa kalsoonida kalsooni cunuga isku kalsoonayaan qof isku kalsoonayaan mas'uul ma noqon karo cunugaaga waa inaad kalsooni bartaa waa inaad shaqooyinka yaryarna u dhibtaa sida ugu tababarto oo qof adag u noqdo hadda hooyooyinka yaani reeraha xoogaha lacagta haysta waxa laga yaabaa ciyaalkood inay ku soo baxaan sababtoo ah ciyaalka mas'uuliyadan ma saarayaan shaqaale cunugan inuu u shaqeeyo mar walba oo wax walba oo mas'uuliyada asaga ka qaadid wax fiican ma aha cunugaaga markaa tarbiyeynaysid tarbiyada iyo mas'uuliyada waa inaad u diyaarisaa waa inaad qof macquul ah oo bari muxuu ahaay kaligiis isku filnaan kara waa inaad ka dhigtaa oo mustaqil noqon karo qof daciif aan ahayn waxa kale qofka bilaadanka naf ahaan diyaarinta guurka waxa kamid ah qabuulul ikhtilaaf ina aqbali kartaa qofka kale yaani ikhtilaafka isku tihiin laba qof oo boqolkiiba isku mid ma jirto qofka laba qof oo dabacadooda kala duwan yihiin ba isku meel imaanaysa marka ma aqbali kartaa qofka kale dabacadiisa ma ku qaadan kartaa ma u dul qaadan kartaa mase marka koowaad baa ka haraysa dhigi kartaa aniga yaani qof waxaan ahay xornimadiisa inuu ku noolaado rabo taasna waa warcad hadaad guursanaydo inaad xornimada ku noolaato laakiin markaad guursanaysid waa inaad nafsiyan aad u diyaarisaa naftaada inaad ikhtilaafka aqbali kartid qofkan kale oo ka duwan inaad duwanaanshihiisa aqbali kartid oo u dul qaadan kartid الزواج سكينة ماذا ugu dambayso يعني guurku waa xasilooni waxa lagu leeyahay ilaahay jaa'izada koowaad uu siiyo qofka xaaraanta iska ilaaliya waa sakiinadaas waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ilaahay wuxuu idin dhex dhigay rahmad iyo jacayl marka jacaylkaas wuxuu ka imaanayaa baa lagu leeyahay qofba wuxuu ka farxad badan yahay oo ka deganaansho badan yahay gurigiisa intuu xaaraanta iska soo ilaaliyo waxa kale oo jirta muxuu ahaay dadka khuraafaad ay aaminsan yihiin oo jacaylkan guurka ka horeeya waa wax khalad kulligiisaba wuxuu khalad ku yahay sababo tiro badan yaani qofka markuu qof jeclaado horta indhuhu beelaya ma arkayo qofkan ceebihiisa qofkan maxaa looga baahan yahay inuu iska baaro oo la dagaalamo oo yaani dabacadiisa barto oo meeshuu ku xun yahay arko oo meeshuu ku fiican yahay arko laakiin hadduu qofka tacalluq yaani uu jeclaado oo qalbigiisa uu la socdo ma ogolaanayo war hebel waa xun yahay iska dhaaf walaalay qofkan waxaas uu ku xun yahay iska daa maya dadka dhaasa ugu fiican waxa lagu leeyahay calaaqaadka xubbiga ku bilowda boqolkiiba 50 waxay ku dhamaadaan dalac boqolkiiba 50 waxay ku dhamaadaan furitaan bay ku dhamaadaan waa calaaqaadka xubbiga ku bilowda jacaylka ku bilowda laana markii qofka uu aqal galo laba asbuuc ka bacdi jacaylkii wuu dhamaanayaa markuu jacaylka dhamaadana waxa bilaabanaysa in labada qof hadda isbartaan koow isbarashadaas waxay ka dhalanaysaa in qof walba qofka kala arko ceebtiisa markaas hadii sa isku dul qaadan karin way kala boodayaan marka waxa weeye qofka intuu iska ilaalin karo iska ilaaliyo intuu muxuu haayeen arintaas uu ka wareegsan karo uu ka wareegsado oo muxuu haayay uu ku bilaabanin waxbaan jeclahay jacayl baan wadaayo waxaas wax jira ma ahan akhlaaqiyadka qofka muslimkaana ma fiicna way dhacday qoysas badan oo guuleystay jacaylka yaani jacayl la'aan dad la isku doonay oo guuleystay way jiraan ka bacdi muxuu haayay waalidka hebel hala fiiriyo heblaaya hala fiiriyo waxay noqonaysaa macnaha qofkaan inaad siiradiisa baran kartid intaada jeclaanin ka hor laakiin qofka hadaa jeceshaa wax kasta xumaana waxay dhahaan likulli ayn alhubb tubdi likulli ayn sukhd isha muxuu haayay xanaaqa iyo nacaybka waxay soo bixishaa xumaanta laakiin cisha jacaylka waxay qarisaa muxuu haayay xumaanta oo dhan marka saas darteed waxa waaye qofka inuu ku bilowdo noloshiisa si nadiif ah oo degan uu iska baaray qofkan kor iyo hoos waana soo socota insha Allah qaybaha labaad waxaan kaga hadli doonaa qofka muxuu haayay waxyaabaha ku keeni kara dadka muxuu haayay guurka waxa ka hadleynaa dawaafic الزواج maxaa kugu keenay zawaajka muxuu dawaaficda kugu keenta maxay tahay dawaaficda zawaajka maxaa kugu keenay inaad guursatid qof kasta dhaqan walba oo qofka ka soo fula wax uu baahi asaga u baahan yahay baa ka keentay
zawaajka muxuu haaye daafica koowaad oo qofka ku riixi kara waa diiniga sharciga وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم دين تأمرسا يا معشر المسلمين من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني انت سو حديثي انت سو آيات آية وحي كشكانسا محوها إني أمر إتهاي أما سو دوين أرين محاوي دين تإن بدن كهذا الشيء أو محوها كسوغان وين دافع كواد دينيga qofki marka qof diin ku soo doortay haduu diinta ka leexdo ka war oo akhlaaqda ka leexdo markii koowaad ba muxuu haye waxa way wixii lagu soo doortay waa ka khaldantay qof muslim ah inaad tahay baa lagu soo doortay oo ahlu diin ah diintii baa lagu soo doortay adigana waxaad bilowday muxuu haye inaad dhinacaaga wax kasta ka sameeysid saadarteed marka waxa way qofka mu'minka wixii lagu soo doortay waa inuu gartaa oo uu qiimeeyaa weey دافع على بعض أو كوكين كرقفك وحيابها كالكوكين كروا مجتمع وحو كلية يعني وابتقانا بقفك مركو حغير وين هذا أنا قبحانه هنا قبلها وقوميس واسان يعني مشكلة دقيقة بكال دمان الهوية باكودين قرصو أباها باكودين قرصو هوي يعني بدك مجتمع ودر وحكوم بوري ريال إنها تقرصو تيت مركو قفك إنو أغادوي دافع قفك كوكين قف مثلا مركا أغاتid qofkan waxyaabaha ku keenay guurka maxaa kamid ah inuu qof kasta garan karo waxyaabaha guurka ku keenay dadku waxay u arkaan qofku markuu soo guursan inuu qof xun yahay marar badan waxa dhacda inaysan arintaas wax ka jirin sababtoo ah yaani waxa laga yaabaa gabar aad u fiican oo aad u wanaagsan inaysan guursanin sababtoo ah qof u dhigmeeyay helin maaha markuu guuracan inay wax walba iska guursato oo ka hor imaada waa inaan muxuu qofka haduusa waxaan is anfacayn inuu iska dhaafo wax ku qasbay male sidaas oo kale laba qof oo is hayn weyday haday isfraan ceeb kuma aha laakiin mujtamac dhaxaysa waxa laga yaabaa qofkan waa qof la furay iyo wax yaani xumaan inay u arkaan waa wax ilaahay baneeyay mararka qaar koodna raxmad ah saadarteed marka macnaha looguma qasbana calaaqaad ijtimaaciga ano ilaalinayo inaan macnaha meel madax la galo oo is gowraca ma ahan waa inaan ka fiirsadaa meeshan u socdo aniga دافع كله أو كوكين كرقفك وحوايه قف كان إنه مجتمع كسر ريحه وحنا نحاكو أغانسا وبارسا ولا سعنسا حالة ديسا قف كان وحلاقي بقى قف مجتمعي سقيمه أهل كيس قيمه غيرهم هذا قيمه يعني أنا حدوتي المركز حدوتي أسقرستان كبعدين إن أدمحها يا قفكي مجتمع سقيمين إلى مجتمع كجوي سمعها وأنا في رسالة دافعي سقف كان دافع كلا وحكم إذا الوالدية قفك أبوة والأموة وحر رأينه هو ينقض أما أبا نقضه قصة حنا وحلقة شكاية محوها إن مريم هو يلد وحالي روحي على اكتمال ما كم إذا شمبر قودين إساس وحالي يابتن رحمة أوهيسا شمبر تاع عنو غير كاهيستو فرق غير كاهيستو مركاسي وحي تريبالي محوها إلهي وإسي المو وحا الندرية إنا مسجد كجيو ويل إسي marka ayada inuu ilaahay wiil siinay Muuse ilaahay Maryam buu siiyay wuxuu ka soo ilaahay ku soo sheegay quraanka muxuu haye ayada faqa ilaahay ka dhaxeeyay falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha ilaahay waxay noqotay gabar macnaha caalamkaas yahuuda xilligaas gabadha waxay u arkeen si xun oo khalad ah ilaahayna wuxuu ka sheekeynayaa xanna wuxuu uga sheekeynayaa inuu ilaahay macnaha karaameeyay gabar wuxuu uga sheekeynayaa waxa ayada ilaahay ku sheekaysteen ba quraanka ku sugan yaani khitaabka ayada ilaahay ka dhaxeeyay marka daafica kala qofka ku keenay karo inuu qofka hooyo ama aaba noqdo waxyaabaha ku keenay kara guurka daafic aljinsi qofka shahwadiisa iyo xaajadiisa inuu ku guto si xalaal ah oo ilaahay raali ka yahay qisatu Salman al-Farisi markuu Abu Darda u maado asagoo habeenkii dhan tukanayo oo salaada cibaadaysanayo wuxuu ku yiri إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا نفت هذا حق بك كل هاي حاسك هذا حق بك كل هاي فعد كل ذي حق حقها يعني حقنا حق كله مني نفت هذا حق بك كل هذا راح يسحل كم إذا سيحو حل كم إذا نتعباد يسحل كم إذا محوها حقك بيحي مركب ضدك محوها توازن بالو باهية قفك بنولش سنن إني سمنت هاي ودين عني أوتنش سنن محوها سلمان الفارسي محوها حكيم waxa laga yaabaa aabihi waqtiga ugu badan ba inuu banaanka jiro inuu shaqadiisa ku mashquulsan yahay
inuu muxuu ahaye laga yaabo inuu dabadda musaafir ku yahay maxaa meeshaas ka baxay qofkan dhan xaqiisii baa ka haraya meesha qofkan xaqiisa in la siiyo qofka kale qof labada qof in xaqooda kala ilaaliyo dawaaficda keeni karta muxuu ahaye guurka ka mid tahay الدافع النفسي قف كستو إنسان أدون كل بهاي هاي إن وهلا حنان يجعل بربع جعل كاس يعني وحاول قف كان حاج وحدريم يا قربه وحشة نفس الإنسان قدرته وجعل منها زوجها ليسكن إليها إلهي محيري وحكسم زوجها يعني حاسك حواء ليسكن إليها فلما يعني كدكتو marka nolosha guurka oo dhan ba waa istiqraar iyo deganaanshahaas marka waa xaaja nafsiga qofka u baahan yahay ya qofkan xoogaa bil hadii la siiyo la dhaho muxuu ahaa halkaas kugu dambaysa may waa khalad arintaas labada qof waxay u baahan yihiin deganaanshahaas inay muxuu ahaayeen qof jeclaado oo nolosha ka wahaysado inuu helo hadii kala guurkaas waxa u badan macnaha qiimo badan ma lahan sida inta badan dadkeena ku nool yihiin dhibaatooyin ka qabaan waxay ku leeyihiin macnaha qof hadda wuxuu ku leeyahay maalmaha kamida waxaan arkay maamo istaal ku jirta 9 sano odageena dibadda ku maqan yahay dhahdo mana imaado lacag yarna uu soo diraa oo aad u yar suuqay ku ganacsataa wallahi qalbiga ay xanuuna yani qofkaas hadda meeqa xaq baa ka dayacan meeqa wax oo dhibaatay dareemaysa meeqa culays ciyaal kaligeed haysa ciyaalkii waa ku xanuunsaday yani waxaasoo dhan 9 sano maalinna ma aha labana ma aha marka xuquuqda hadaa ilaalin karin marka horeba dawaaficdaada qofkan aad gali karin inaad guurkaas uu soo macno weyn u sayaalan oo marka horna aad galin adiga ina labadan qof is dhameystiri karaan adigoo ilaalinayo muxuu haay dhibaato tiro badan ayaa ka haysata dawaafic khalad ayaa jirto waxyaabo badan oo khalad ah oo guurka ugu riixi kara waxa kamid ah dalab shuhra inuu qofka dalbanayo caanimo qof caana haduu arkaba خلاص قفك وجورسنا لأنه قف عانى وعاني ماذا سكربا وخلط بقولك وبقول وخلط عاني ماذا اسمكوا نقول سأديك جور دجنا شيء يحسلوني منكم ما نقول صوت دافع كروها كم إذا المال قف كان حوالو ليه غيرك هدوبا نن حوالو لو ما هذا خلاص قبل هذا وجور عنها هدو عيالي هاي هدو محوها إن فائدة لهين هدو قف قربني أخلاقيا معناها قف هدو وحول وشروط كصبحه شروط الجور كلن هادو كسو بيعي كرو او العقل ليه ديب مال عيب ما هالعقته لكن ان العقل ادو رادينايو اد gabadhaadi siisid oo meel xun ka turtid ayaa la diidan yahay marka waxyaabaha soo isku soo dhadhaweeyay waxa kamid ah nabi sallam sayida khadija markuu guursanay خلاص وشي sayida khadija markuu guursanay nabi sallam كانت waxay lahayd maal lacag tiro badan bay lahayd laakiin qof akhlaaqdeeda iyo wanaageeda wax walba ka sareeyo waxa marka halkaas waxa ku soo koobayna insha Allah qaybta koobaad oo aan kaga hadlaynay doorashada lamaanaha ilaahay hana waafajiyo dhamaanteena go'aan wanaagsan inaan noloshana qaadana Allah na siiyo qofkii hore u soo qaatayna ilaahay ha waafajiyo noloshiisa waa ha u barakeeyo waa ha u dajiyo oo nolol degan Allah uga dhigo qofka inuu geesihiisa eegama ahaan wax qalada soo doortay waxa haysatid waa ina ilaahay ku qanacdid محوها وحنا قلنا ستكون أسعد الناس ده وحها يستأكو قناعسنتها أو وناكستد ومحوها وحي كلا كود من آدم يشترتد هل كسر يكسو هذا بالله التوفيق.